kolba hal daqiiqiya badh inaynu ku soo koobno wada hadli kara mayno dawanu badannahay oo aad baynu badannahay dad kooban insha allahu tacaala xubneeyo qof بيان بيان ديارينا وجرا ها الشيخ محمد علي جامع الشيخ محمد هذا ايوه تفضل هنا صدق على الشيخ محمد ايش محمد ان شاء الله يا شيخ محمد هذا ان شاء الله الرحمن المرسي احنا غاية يرسل وريال إن شاء الله. ما واحد دوني أنا تشاركه شو ما بدنا أنت وين شرا مدري أنت وين شرا شو تشاركه أخيس تشاركه بلو دوين كل أنت وين شرا ها تشارك شرا ما قرح يا زلمة واضح خير وي يعني قرح حلوة مهمة لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه annagoo ku hadlaynaa afka culimada magacyadooda hoos ku xusan yihiin ee magaalada Hargeysa waxaanu tacsi tiiraanyo leh u diraynaa dhammaan ummadda muslimiinta ah bulshaweynta Soomaaliyeed mujtamaca Somaliland bahda culimada ardayda shacabka gobolka Sool ehelkii qaraabadii iyo asxaabtii uu ka baxay allaha u naxariistee sheekh cabdinaasir xaaji axmed yuusuf oo maanta lala beegsaday qarax qorshaysan isagoo oo sheekhu u joogay safar dacwadeed magaalada Kismaayo culimadu waxay kaalin muhiim ah ugu jiraan bulshada islaamka iyagoo xambaarsan dhaxalkii nebiga sallallahu alayhi wasallam kaalintaasoo aanay cid kale buuxin karin sheekh cabdinaasir xaaji axmed allaha u naxariistee waxa uu ahaa caalim weyn oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee ku suntanaa faafinta dacwadda islaamka iyo soo saarista culimada iyadoo ay ka aflixeen dad fara badan oo kala jooga daafaha dunida sheekhu
waxa uu lafdhabar u ahaa nabadda iyo heshiisiinta bulshada iyo weliba ka shaqaynta dhammaan arrimaha khayriga ah. sheekh cabdinaasir waxa uu caan ku ahaa inuu bulshada uga digo afkaarta qalloocan ee shaadhka diimeed huwan, laguna bannaysanayo dhiigga dadka muslimiinta ah. waxaanu cod dheer ku cambaaraynaynaa falkaa foosha xun ee bahalnimada ah ee sheekha lagu dilay, annaga oo alle u weydiinayna inuu u aqbalo shahiidnimo maadaama oo loo dilay diinta alleh isaga oo faafinteeda ku howlan, taasoo uu soo waday muddo ku siman ama ku dhow 50 sannadood. ugu dambayn waxaanu ugu baaqaynaa bulshada inay ku xidhnaadaan culimmadooda, ka bartaan diintooda, kana feejignaadaan afkaarta leexsan ee diinta aan waafaqsanayn. ilaahayna tabaaraka watacala waxaan u weydiinaynaa walaalaha kale ee ku dhaawacmay falkaas qaraxa ee foosha xun inuu caafimaad degdega oo taama siiyo. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. وعن هل كان تعسيا نقدرنا ونقد تعسيا ديننا أمد المسلمين dhammaan inta af soomaaliga ku hadasha iyo shacab weynaha dhammaantii iyo culimadaba falka bahalnimada ah ee waxaan uga diraynaa tacsida sheekh cabdinaasir xaji axmed yuusuf, allah u naxariiso, oo maanta qarax qorshaysan lagula beegsaday magaalada Kismaayo. waxaanu leenahay ilaahay sheekha ha u naxariisto, ilaahay dilka lagu dilay ee falka bahalnimadana shahaada allah uga dhigo, allah u aqbalo. walaalaha la socday ee halkaa ku dhaawacmayna ilaahay ha shaafiyo, ilaahay ha caafiyo. waxaan leeyahay dadka falkaa ku kacayna ilaahay qof dambe oo muslima oo sheekh cabdinaasir ka dambeeya allah idinkuma sallido. runtii sheekhu sidaa walaalkeen doctor cabdiqaniba uu ku sheegay bayaanka, intaan anugu runtii bartay iyo intaan ka sheeko qaatayba wuxuu ahaa walaal ku howlan dacwadda iyo diinta faafinteeda, dadka dhallinyarada ee soomaaliyeed waxbariddeeda, iyo wanaagga iyo islaaxa iyo ka shaqaynta meel walba ayuu ku suntanaa. tii isagoo wada oo saaka kelmada jeedinayey oo maanta deris ka soo baxay ayaa lagu dilay oo uu ku dhintay. marka waxaan leeyahay dhammaanteen ilaahay haynaga sabir siiyo, gaar ahaan ehelkiisii iyo asxaabtiisii gaarka ahayd ilaahay ha ka sabir siiyo. ummadduna runtii waxaanu ku baraarujinaynaa falalka noocaasa ee meel walba ka soconaya inay ka digtoonaadaan, dhallinyaraduna ay ku baraarugsanaadaan afkaarta noocaasa ee diin looga dhigayo ee lagu beegsanayo rumuustii diinta iyo dadkii diinta faafinayey ee wuxu tarayey. waa inay ogaadaan waxaasi wax diin shaqo kula inaanay ahayn, bal wax diinta markaa iyo dadkeedii lagu waxyeelaynayo inay tahay. waa inay ku baraarugaan. marka mar labaad iyo mar saddexaadba sheekha ilaahay ha u naxariiso, dhammaanteenna ilaahay sabir iyo iimaan allah inaga wada siiyo. wabillahi towfiiq.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaan tacsi tiiraanyala u diraynaa ehelkii iyo qaraabadii iyo bahdii iyo ummaddii oo dhan ee uu ka baxay sheekh cabdinaasir xaaji axmed yuusuf. ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay qabriga u nuuro. ilaahay waxaan ka baryaynaa jannatu lfirdows ilaclaa maca annabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa'i wasaalixiin ilaahay uu kala magac dhigo. ilaahay baa waxa uu yidhi isagoo nebiyullaahi muxamed la hadlaya innaka mayitun wa innahum mayituun. nebi allow adiguna waad dhimanaysaa iyaguna waa dhimanaya. saddex aayadoodoo qur-aanka ka mida oo intooda hore isku wada mid tahayna ilaahay wuxuu yidhi kullu nafsin daa'iqatu lmowt. naf waliba waxa ay dhadhaminaysaa geerida. maanta ayaa ay noqotay maalinkii sheekh cabdinaasir faylkii adduunyada loo soo xidhayey isagoo diin ilaah iyo dacwad ilaahay ku jira. qof walbana waa la wada marayaa oo waa la dhimanayaa sida aayaadkaasi inoo sheegeene qof walba maalin un bay la kulmaysaa. xukunku waanu ku wada xukumanay laakiin qofba maalin maantay noqotay. sheekh cabdinaasir waxaa culimmada halkan fadhida ee isugu timid runtii uu ka mid ahaa culimmada oo bahdii culimmada. bahda culimmaduna iyagaa ugu mudan inay ummaddana tawjiihiyaan. ay waxa weeye sheekha ama cidda ka baxdana ay runtii iyagu bilaabaan ducadiisa iyo inay ilaahay u baryaan. marka sheekha oo maanta inaga baxay oo runtii daaci ahaa caalimo ahaa magaalada hargeysa oo qura inta jeere uu yimid ee uu dacwad iyo diin ka fidiyey tiro ma leh. yaraantiisii burco ayuu runtii marka laga tago noloshiisii hore miyiga burco dadkii wax ku bartay ee dhallinyartii ugu horreysay ee wax baratay diinta baratay buu ahaa. dadkii dacwadda yeman ka waday buu ahaa ee macallimiinta ka noqday. isagoo maanta nin weyn ahaa oo sannadaha la sheegay in ku dhow oo dheer dacwadda ku soo jiray ayaa waxa uu imanka sida uu dacwadda u waday iyo sida uu dadaalayo 20 jirka ayaad moodaysa inuu la fil yahay. waxaan ilaahay uga baryaynaa isagu maanta ilaahay buu la kulmay khayr badanna waa u rajaynaynaa. camal wanaagsanna oo aynu inagu arkaynayna waa loogu khatimay in ilaahay rajada aynu ka qabno ilaahay inoo rumeeyo oo ilaahay u naxariisto. innagana maalin baynu halkaa gaadhaynaa ee maalintaynu gaadhno in ilaahay inoo naxariisto. ehelkii iyo qaraabadii iyo culimmadiina waxa weeye inagoo ka wada xun fa asaabatkum musiibatu lmowt. ilaahay baa yidhi geeridu waa musiibo. waa musiiba ilaahay baa yidhi waa ka xunnahay waa damqanaynaa sidii nebi moxamedba calayhi salaatu wasalaam wa innaa lafaraaqika yaa ibraahiimu lamaxzuunuun buu yihi nebigu calayhi. bixidda aad naga baxday inankii ibraahino waa inankiisii waa ka tiiraayeysan. inaguna halkaasaynu maraynaa inagoo ka tiiraayeysan. haddana qadarku wuu dhacay. waxaa la doonayaa dariiqaa uu hayey ilaa isagoo dhallinyaro ah ilaa isagoo sheekha dacwadda isagoo ku jiray ilaahay ku qaatay. dariiqaasi waa dariiqa iyo casharka iyo deriska aynu ka faa'iidayno sheekha. allah u naxariisto dhammaanteenna allah u naxariisto. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. فيصل كان فيصل صوتس فيصل صوتس ايوه محمود عيب ولا بعد عايشهم وقعت
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعسيدا علماء ويدرين هي بيان كاي سو سارين أيان لقبا هي دعاء أي دعيين دمان أي دعيين أهل كيسي شيخ أي دعيين شيخ عبد الناصر حاج أحمد يوسف عليه رحمة ربي eheladii uu ka baxay bahdii culammadii uu ka baxay qarankii iyo dadkii oo dhan degaankii oo dhan ay u duceeyeen ayaan la qabaa. waxaan doonayaa inaan ku daro sheekh cabdinaasir cidda dishay waa kuwii cali ibn abi aalib dilay radia allahu tacaala canhu, waa kuwii cuthmaan ibni cafaan radia allahu tacaala canhu isagoo kitaab qur'aana akhriyaya qoorta ka jaray, waa kuwii cali ibn abi aalib isagoo salaad subax tukaday qoorta ka jaray. arrin cusub maaha, wuxuu maray waddadii ay mareen asxaabtii nebi moxamed sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam, waxaana guuldaraystay kuwa dhiiggiisii loo xambaariyey isagoo 65 jir ah 50 sannadood wax ku dhow cumrigiisa diin iyo dacwad faafinayey. maanta waxa weeyaan isagoo 10 iyo dacwo ka soo baxay dilay ee gaari ku gubay. kuwaasaa guuldaraystay. kuwaas iyo cidda la midkeed diinta duulaanka ku haya culimmada waxaan leeyahay kun cabdinaasir baa jira, kun sheekh cabdinaasir ayaa jira oo diyaar u ah waddadii uu maray inay maraan, diinta faafiyaan, wax kasta oo yimaadana diyaar u ah. marka taa horta ha ku bishaaraystaan inaan diintani aanay u istaagaynin caalim culammada ka mida oo la dilay inaanay u istaagaynin, waddadaana la wada marayo. waxaan kaloo baaq aan u dirayaa culamo dadka shacabkan muslimiinta ah inay culimmadooda difaacaan, diintooda difaacaan, diintooda ay ku faraadeegaan. waxaa la joogaa aakhiru zaman, qofku inuu diintiisa gacanta ku qabsada ay uga dhigan tahay inuu dhuxul dhimbiil cad uu gacanta ku hayo. sidaa daraaddeed waxaan u soo jeedinayaa baaqa sheekh cabdinaasir xaaji axmedna rabbigii buu la kulmay, khaatimo wanaagsanna waa loogu khatimay. inuu shahiid ahaana waa u rajaynaynaa oo laba shahaado ilaahay subxaana wa tacaala ay ugu kulmiyey in ay daalimiin dileen oo diin daraaddii ay u dileen iyo in ay gubeen, labadaasiba waa ku kulmeen. ilaahay subxaana wa tacaala qabrigaa u nuura. wallahu tacaala aclam. wsala allahu wasalam wabaarak calaa cabdihi warasuuli maxamed wala الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. waxaanu tacsiid tiiraanyala u diraynaa geerida ku timi ama dilka qorshaysana ku yimi fadiilatu sheekh cabdinaasir xaaji axmed yuusuf oo maanta lagula beegsaday magaalada Kismaayo. ilaahay waxaan uga baryaynaa sheekha inuu ilaahay u naxariisto, jannadii uu geeyo, dembigiisii uu dhaafo, ilaahay shahaadaasi uu aqbalo. ilaahay subxaanahu wa tacaala ee ciddaasi daalimiinta ahee sheekha dilayna ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay mutaysteen inuu ku abaaliyo. waxaanu runtii dhammaan dadka muslimiinta ah iyo dadka maaragtay runtii soomaalida ah iyo shacabka somalilan gaar ahaan reer sool waxaanu runtii uga tacsiyeynaynaa geerida sheekha oo runtii fadligiisa culimmadu ay tilmaameen. aad iyo aad waxaanu runtii uga xunnahay dilka noocaasa ee lagula kacayo dadka culimmada ee diinta faafinaya.
waxaa aad u ayaan daran dadka markaasi ka dhiganaya dilka culimada ayaa aad u ayaan daran. ilaahay subxaana wa tacaalaaye iyagana ha ka abaaliyo wixii uu hanuun la damcayna allah soo hanuuniyo. waxaan walaalayaal leenahay aad iyo aad baan runtii sheekha ugu ducaynaynaa. ilaahay shahaado uu u aqbalay ha uga dhigo, qabrigana ha u nuuro. sala allahuma calaa sayidina maxamed.